haddii aad rabto inaad ganacsi bilowdo balse aadan garanayn qaabkii aad u bilaabi lahayd waa kan qorshihii ka caawin lahaa inaad maantadan aad hirgeliso ganacsigaagii ugu horreeyay anigu waxaan ahaa weligiiba qof fikrado far badan haya rabana inuu wax isku dayo si uu ganacsina u bilaabo balse ugu dambaystii 2019 ayuu ahaa go'aankii ugu horreeyay ee aan qaato si aan ganacsi u bilaabo 31 bishii toddobaad 2020 waxay ahayd maalintii ugu dambeysay ee aan tago shaqadayda 5 cisho aan tagi jiray buugaag far badan iyo koorsooyin far badan intaba waan qaatay balse waxaan bartay waa wax ka duwan wixii aan buugta ka akhri adigana aan kugu soo koobi doono videogan oo qura kusoo dhaw hanti yeelo magacayga waa iid haddii aadan hor noogu soo biiran kusoo dhaw familiga hanti yeelo si aan kaaga caawino waxyaalaha dhaqaalahaaga sare u qaadi doono biidnillah qorshahan wuxuu ka kooban yahay 3 talaabo si uu kaaga caawiyo ganacsigaaga ugu horreeya inaad furato step 1 ganacsiga waxa ka muhiimsan jawiga sida in ognahay ganacsatada badankoodu 90% way guul dareysan maadaama ay ka boodaan talaabooyinka soo socda Warren Buffett ayuu xidhaa risk comes from not knowing what you are doing si aan u hirgeliyo qorshahayga ah inaan ka baxo shaqaalanimada ganacsiga ugu horreeyna aan bilaabo waxaan ka shaqayn jiray 2 shaqo isniinta ilaa jimcaha shaqadayda caadiga ayaan tagi jiray sabti iyo axadna waxaan ka shaqayn jiray shirkad nadaafada waxaan isweydiiyay su'aalahan kow ganacsi noocma ayaad rabtaa inaad bilowdo laba dadka ganacsigan wadi lahaa waa ayo saddex qorshe iyo fulin cad ma leedahay xaqiiqdii su'aalahan waan ka jawaabi kari waay mana hayn jawaabo ku haboon waayo waqtiga aan rabo ganacsiga inaan bilaabo waxaan ku noolahay Switzerland ganacsiga goobta aan ka rabo in laga furana waa dalkii marka jawaabo cad uma hayn anigu waqti xaadirkaasi waqti ugu filan oo aan xogta isku raadiyo ma haysan ka bacdin waxaan go'aansaday inaan lacagtaas sida ugu dhaqsaha badan aan geliyo real estate-ka way haddii kale lacagtaasi waan lumi doona mana haysan karo tani waxay ahayd ganacsi ku haboon marxaladaas aan waqtigaas ku jiray haddaba adiguna isweydii su'aalaha noocan ah waqti xaadirkan xaaladaad waa sidee miyaad guursatay awlaad ma kugu joogtaa halkeedna ku nooshahay shayga labaad ee ganacsatada badankooda ay ka boodaan taasoo u horseeday in ganacsigooda uu khasaaro watan soo socota khayraadka qofku uu haysto resource noocma ayaa horteeda yaala oo iga caawin karaya si aan ganacsi u dhisto resource-ka aad haysata waa noocma ma lacag oo kaliya ayaad haysataa bilaa fikrad ayaa tahay ma waqti far badan iyo xoog ayaad haysaa ma dad hawlkara ayaad garanaysaa oo hantida iyo ganacsiga si fiican u maamuli karaya mise resource ka duwan ayaad haysaa step 2 ganacsigu ma ahan faa'iido ee waa habraac mulkiilaha aqliga badan leh ma ahan kan arka lacagta meesha ay taalo ee waa kan arka meesha ay mushkiladu taalo hana isku qaldin mushkilada aad adigu arkayso iyo mushkilada qofka mushkilada haysti oo arki karo ee u baahan in loo xaliyo haddaba ka hor inta aadan mushkilad xarin isweydii mushkiladan aan xalinaya ma mid cusub oo anigu aan ku soo kordhinay suuqa mise waa mid hore u sii jirtay oo aan kaliya qurxinay oo fudaydinayna hadda maad fiirin lacag oo kaliya ee waxaad fiirisay in ganacsiga dhanba uu yahay mushkilad xalin sidoo kale waxaad ogtahay mushkilada aad xalinaysa noocay tahay hadeer qaab noocma ayaan ugu bedeli karna mushkiladaasi ganacsi adigana faa'iido ku keena step 3 ganacsigu ma ahan meherad ee waa habraac ganacsigu kama bilaabmo inta aad xalkii soo qaadid aad la carartid oo markaana afka ka gilgilsid customer-ka haddii uu yahay product ama service uu yahayba ee ganacsigu wuxuu ka bilaabmaa xog cad ka hor inta aadan lacag iyo juhdi midna toona aadan ganacsiga gelin markii koobaad ka qaad tijaabeen waa nidaamka aan ugu jecelahay inaan ku bilaabo haddii aan wax tijaabinayo haddaba aynu tijaabino ganacsigeena inagoo lacag iyo juhdi midna toona aynan ku bixin inagoo isticmaalana waxaynu hore u bahaysanaba taasoo ah social media su'aalo noocan aynu soo dhigi doona tusaalaha ganacsiga noocan ayaan rabaa TV guriga ma ku yaala isbuucii 2 jeerna ma ka xumaada degdeg noocee ayaa lagu hagaajiyaa ma jeclaan lahayd si kale in lagu hagaajiyo TV-gaagana lacag intee leegna waad ku bixisaa su'aalahan markaad weydiiso jawaab ayaad heli doontaa haddii aad rabin inaad social media ganacsiga ku tijaabisana taleefankaaga dad baa ku jira ee waa una sheeg si daacada inaad rabto inaad ganacsi aad bilaabayso balse aad rabto inaad xog iyo tijaabo aad hesho ka bacdina waxaad weydiisaa su'aalahan hore ku sheegay ugu dambeys waxaad heli doontaa xog ka caawinaysa inaad hesho mushkilada saxda aan ahayn taad adigu u maleynaysa ee ta mushkilada saxda iyo qaabka ugu fudud ee uu jeclaan lahaa qofka loo rabo in loo xaliyo mushkilada in loogu xaliyo tijaabada labaad waxaa la yiraahdaa MVP product minimal variable product tijaabada ugu yar ee ganacsiga ku tijaabin karto adiga oo lacag iyo juhdi fara badan aan gelin haddaba sideed u fahmi kartaa siro fudud nidaamka la yiraahdo MVP tusaale ahaan waxa weeyaan haddii aad rabto inaad ganacsi cosmetics inaad furato halkii aad meherad lacag fara badan aad ku bixin lahayd alaabtii aad dalbi lahayd samee oo kaliya 2 product oo kamida ganacsiga aad furi lahayd intaad soo iibso
isku day inaad customerkii aad ka iibin lahayd inaad ka iibiso tan waxaa la yidhahdaa tijaabada ugu yar ee ganacsigaaga aad ku tijaabin karto adigoon juhdi iyo lacag fara badan aan gelin tani waxay kaa caawinaysaa inaad sii xaqiijisid in ganacsiga aad rabto inaad bilowdo in uu xaqiiqdii shaqayn doono iyo in kale balse ha iloobin halkan shay aan kula wadaagay kahor inta aadan ganacsigii aadan furin isku sii diyaari inaad macaamiisha meeshii lagu qori lahaa baahiyaha iyo rabitaanka ay rabaan qaabka u jeclaan lahayn in loo xaliyo dhammaantood waxaas oo dhan inay diyaarsan yihiin isla maalintaad ganacsiga furto inaad ku hirgeliso haddeer waxaad haysataa mushkiladda aad xalin doonto waxa ay tahay nooca ay tahay iyo qaabka ugu fudud ee aad ganacsigaaga u furi karto haddeer waxaa kuu bilaabmi doona safarkaaga ganacsiga haddii aad xiisaynaysid oo aad rabtid inaad ogaatid qaabka macaamiisha saxda ah loo soo helo ee ku habboon ganacsigaaga haddaba waxaad hoosta igula wadaagtaa macaamiil si aan videoga xiga aan uga soo sameeyo qaabka loo doorto macaamiisha iyo macaamiisha ku habboon ganacsigaaga biidmillah haddii aad ganacsi leedahayna ood weli ka hadda la dhibaataysanta qaabka maaliyadeed ee ganacsigaaga uu ku shaqeynayo khasaaran aad ku jirto isticmaal ii xisaabi hoostana waxaad ku soo qorta ii xisaabi waxaan kuu furi doonaa ii xisaabi si bilaasha